in qalabkan la helo dadaalka la sameeyo waxaa sabab u ahaa alla ka suka in dumarka magaalada ku nool ay dadaaleen oo ay qayla dhaamiyeen markay u dulqaadan waayeen xaaladda qadaran oo ay wajaheen qaar ka mid a haweenkii magaalada ee foolanaya oo gargaar waaye guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya ayaa qadka telefoonka ku jirta Shukri Saalax Bashiir. Shukri soo dhawow, waxaa iga warantaa marka hore haweenka iyo nolosha ay ku nool yihiin iyo xaaladan aad ka danqateen ee markii dambe sababtay inay isu tagtaan. walaalo waan dhawahay xaaladan maxay ahayd aan ka damqanay maxay ahayd na soo wajahday ka dumar ahaan maxay ahayd waa dhibaato aan wax la koodi kara ahayn maaragtay gabdhihii Soomaaliyeed ee ku noolaa degmada Afmadow maalin walba markay fooshaan qalab ma lahan wax qalab ma lahan wax maxay taal dheeli tiran oo caafimaad maxay baahsanaysano gabar walba waxaa la dhihi doobley oo noo jirto 150 kilomitir ama 130 kilomitir haloola ordo waxaa laga yaabaa wadada inay roob tahay gaarigii dhaxdan isaga haalani oo maxay isagoon meel gaarin maalin walba gabdhihii waxay ku dhimanayaan dhaxdan oo maxay ahayd dhibaatadii maxay ahayd meeqa gabdhood isaga dhimatay dhaxdan kadib anagi wixii wuna danqiyay waan dhibaataysanay oo dhibkii wuna saameeyay gabadhaydii dhimani tiila dhalataa dhimani anigiyaa maxay ahayd ku jira qatartii 24 saac markii aan maxay ahayd gabdhihii haddii aan nahay aan shir degdeg qaadanay oo dhibaatada naga badatay shir degdeg aan qaadanay waxaan go'aansanay maxay ahayd dawlad hadda wax loo qabato ma arkahaynaba oo maxay ahayd dhibaatada intaas oo sano ay daashatay madaxweynaha Soomaaliya haduu yahay ku dawlad goboleed haduu yahay maxay ahayd wax intuu na fiiriyo gabdhihii maalin walba Soomaaliyeed oo dhimanayo wax ka qabta markaan weynay intaan kacnay oo dabar adeegnay oo guri walba isku tashi sameeynay oo guri walba oo ku yaala Afmadow azaabkiisa garaacnay aan maxay ahayd lacag ka urursanay maxay alxamdulillah shukri lacagti aan urursanay saakayta guusheedan taaganahay iyo dad badan oo mutadawac ah naga la qayb qaatay oo radii markaan kacnay ilaan gabar waxay bilowday wax ka fariisanay ma lahane saal isla garab istaagay wiil iyo gabarbo maxay ahayd guushii aan soo hoyanina maanta wax hadee mara lagu dabooli karo ama qarsoomi karta ma ahan alxamdulillah shukri inta kasii badanna waan rajaynaynaa haddii ilaahay ka raali waa maasantaa. Shukri waxaa iga warantaa ma tiro koobteen ama ma ogtihiin inta ay gaarayaan dumarka dhibtooday ee u geeriyooday xilliga foosha gargaar la'aan? wallaahi wax tiradooda hadda aan kuu sheegi karo allayleeyahay haddii aan ku dhaho intaas waa hadda tiro guud ee gacanta kuma haayi laakiin wax yar oo maxay ahayd kuma dhimanin meeshan gabdho badan baa maxay ahayd dhibaatadaa ku rafaade ama dirqi kaga kacay oo iyagoo silic iyo rafaad gaari wada la'aan laami la'aan meesha ka jirto waa wada xuno karakeeshine gabdhihii markay dhibka ku dhaxdan intay sii socdaan sii geysa nafna naf baasay geyni sii kalena dhaxdan ay kusii dhimanaysaaba marka wax hadda hebel iyo hebel ama aan ku dhihi karo maaha wax tirada ka baxsan waa markaad dadaalkan bilowdeen oo isxil qaanteen oo gurihii lacag ka raadiseen sidee ayay dadku idiin arkeen dumarku kaalintooda intee la ekeed? wallaahi waxay dhaheen waxaan horna looga baahnaa waaye maxay dadku way ku wada farxeen maxay markaan kacnoo dhahno intee arrinkan maxaa ka socotiin waxaan ka soconaa dhibaatadii gabdhihii Soomaaliyeed la haysatay oo maxay ahayd soo haleesho waaye markaan dhahno nin walba wuxuu dhihi maasha Allah gabdhaheeni qeyr Allah idin sii hor u socda guuleysta. magaalada way weyn tahay ilaa 200 kilomitir gudaheeda inay isku jirtaa qiyaasii lagu qiyaasaa ama 160 wax ka badan baahida ma dabooli kartaa qalabkan aad hesheen mise weli waxba u baahantiin? wallaahi waa dhiig joojintan sidaan u arko waa maasan tahay ma jiraa dad kale oo idin kala qayb qaatay oo aad xusi lahayd oo aad uga mahadcelin lahayd dadaalkiina? wallaahi wiilasha maxay ahayd ururada dhalinyarada odayaasha ma loo kala harin arrinkan waa markii dambe markaan kacnay gabar ilaan markay kacdo ciyaar maaha haddee madaxa gelgisho sooma ogid waa la wada kacay kulli waa run wax badan aad xallin kartaane maxaa kaloo qorshaheedu kugu jira oo aad rabtaa in Afmadow ka jiro dhiba aad xallin doontaan? waxaan rabnaa haddii ilaahay ka raali noqdo Allah nagu guuleeyo oo hadda aan ku jirnaayo dhaqaalaheeda ma bil walba aan in qoondaysan dadka ka qaadanaa in aan laamiga isku xiro Kismaayo iyo Doobley inaan sameynaa haddii ilaahay ka raali noqdo ku tala jirnaa haddii oo maxay ahayd aan guushaas gaarno insha Allah taasaan ku rajaweynayaa haddii Allah ka raali noqdo. waa maasantahay. su-aasha ugu dambaysa Shukri gabar kale oo Soomaaliyeed ah la mid ah kuwa aad ka damqateen oo wax u raadiseen oo meel baadiya joogta ama magaalo joogta oo aan gargaarkan heli karin wixii aad marteen mid lamidna maraysay maxaad kula talin lahayd dumarka kale ku dhageysanaya? dumarka kale ay dhageysanaya meel walba ay joogaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabaa aan u sheegayaa aan ku boorinayaa in dhibaatada saameyso ay ka kacaan
maxay ahayd dhibaatada ku dhacaysa ayadana ay u dhabar adeegto hiil iyo hooba dadka ay la garab istaagaan meel walba oo gabar dhiban ay ku jirtana intay isku tashtaan ay dadka usoo bandhigtaan dhibaatada in lala garab siiyo lana qaado insha allah intaasaan ku foorinayaa gabdhaha soomaaliyeed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Shukri Saalax Bashiir gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose waxay iga hadlaysay dadaal ay dumarku sameeyeen lacaga iska aruuriyeen oo ay markii dambe ku guuleysanayeen ku soo gataan qalab caafimaad oo ah kuwa dumarka lagu qalo xilliga foosha waxay arrintaasi ka dhalatay kadib markii gabdho badan oo foolanaya ay ku waayeen in ay u safriyaan Doobley oo u jirta wax ka badan 150 kilomitir diyaaradna ay waayeen si Kismaayo iyo meel kale loogu soo qaado kuwaasoo intii safarka lagu sii jiray ay xaalada caafimaad u geeriyooday